qabyada xasan sheegay waxay tahay ka hadla qabyada xasan sheegay waxay ahayd tan hadda socoto way inuu dalka burburiyo dadku isku diro dalka oo abaar ah waxaan maqlayaa xalay nin sanatar ah oo garow naga soo qaaday ayaa 400 kun lagu keenay xamar 200 na waa la siiyey 200 na dib loo siinaalay ujeedada laga leeyahay ma ay tahay lacagtaas tirada badan kaligiisa ma dad badan oo aan hadda ku aragnay baarlamaanka fadhiyaan kulli waa la soo gaday sababta maxay tahay loo soo gaday waxa la rabaa dastuur hortiisa waxa waaye wax bulsho heshiis ay ku tahay oo kan baadiyaha joogo kan miyiga joogo kan diyaaradda saaran kan markabka saaran kulligoodii ay u wada dhan yihiin oo la qanciyo lagala tashto la ogolaado wada ogol way heshiis bulsho way lacagtaan intaas dhan maxaa loogu bixinaa horta haddii wax fiican la samaynayo lacag looma bixiyo waxa lacagtaan loo bixinayo waxay tahay dastuur sida dharka loo tashto isku cabiray in la samaysto oo lagu soo noqdo dalkana lagu burburiyo taas xildhibaanada labada aqal ee Jubbaland ee dawladda federaalka ugu jiro taas waa diidnay waa taad aragteen inaan diidnay haddii inta aan joogno maantana baarlamaanka la fadhiyo tan kale waxa waaye dalka maanta abaaraha ka jirta ninka 400 halka qof 400 lagu bixinayo meeqo boydood biyaha goynay 400 ma sheegi kartaa meeqa bariis oo keentalo bariis lagu gadi kara dadka u baahan ani waxaan qabaa waa caddahay arintaas ilaahay waxaan ka baryayaa danta uu ka leeyahay xasan sheekh inuusan u sahlin assalaamu calaykum